السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا معلم محمد إبراهيم. هل كان واحد كسر ودنا عشرة كبرنا سوفت وير كلام بحي تالي ER9 marka maanta waxaan rabnaa casharada hore casharka duwan inaan qaadano oo ah prepare final account of Talagana traders for the year ended 31 December 2018. waxaan rabnaa inaan final account aan ku sameyno muxuu ahaa tali ER9 marka account cycle marka laga sheekeynayo account ka xaal cycle waxyaabo ku wareeg waxa kamid ah kow in qofku sameeyo bookkeeping marka qofku bookkeeping dan sameeyo waa inuu sameeyaa journal entry dan marka inuu sameeyo journal entry waxa ku xigaya waxa la dhaho ledger dan waxa ku xigaya waxa la dhaho trial balance after trial balance waxa imaanaya final account ayaa imaanaya oo ah loo final account marka final account waxa loo kala baxaa saddex qaanadood oo qaanada koowaad la dhaho trading account qaanada labaad la dhaho profit and loss account iyo qaanada u dambaysa oo loo balance sheet. Trading account waxa uu noo sheegaa gross profit ama gross loss muxuu ahaa profit and loss account isna wuxuu noo sheegaa net profit ama net loss. Balance sheet kan wuxuu noo sheegaa financial business position ganacsigaagu position ku marayo ma good ba or ma bad ba marka already theory ahaan uu diyaariyay xagan ayuu u qoran tahay mataqaana muxuu ahaa theory kan halkaas ayuu qoran tahay marka laakiin waxaan rabaa taaliga inaan ku sameyno oo aan ku ogaano taaliga maxaan faa'iido helnay maxaan khasaare helnay iyo ganacsigeena mataqaana position ka uu marayo marka waxa la yiri prepare final account of Talagana traders for the year ended 31 December 2018 ayaa la siiyay ganacsigaas ayaa xisaabinaynaa company-ga ayaa xisaabinaynaa already company-ga anigu waa soo asaastay laakiin casharo hore ayaan soo qaadanay oo fara badan sida loo asaaso company marka dad aqoon sida company-ga loo asaaso casharada hore soo daawo marka waxaan rabnaa inaan isla ogaan inaan mataqaana muxuu ahaa final account-gan aan sameeyo aan geliyo muxuu ahaa taaliga dan oo mataqaana muxuu ahaa sida halka ku qoran muxuu ahaa balance sheet-kan jadwalkan sida halka ku qoran already sameeyay in isku wax soo baxaan oo hadda marka taaliga sameeyo aan taaliga dhaho profit and loss ka ku tus waa inuu siiyaa muxuu ahaa gross profit ka inaa helaa 9759 inaa helaa ma garatay oo aan balance sheet kan hadda net profit kana aan helo 5300 balance sheet ka total amount ga aan helo 112,400 inaan helo muxuu ahaa balance sheet ka waa inaan markaas sameeyo mataqaana taaliga markaas sameeyo taaliga waa inuu xisaabaha soo dhan isiiya marka sida loo galiyo sida loo sameeyo ayaa isla baranaynaa caaws loo ogaanina final account ga sida loo galiyo muxuu ahaa taali ER9 marka already ani company waa asaasan yahay marka daaqadaas ku soo baxdo mataqaana muxuu ahaa gateway of tali meesha ku qoran tahay waxa ka tagaysaa meesha ku qoran tahay accounts info ayaa ka tagaysaa meesha ku qoran tahay enter ayaa leedahay ku dhufanaysaa dan waxa tagaysaa meesha ay ku qoran tahay ledger dan waxa leedahay meesha waxa jira single ledger ayaa jira iyo multiple ledger ina single ledger sameyso iyo ina sameyso multiple ledger laba xaba marka waxa leeyahay single opening stock oo ah lacagta ganacsiga ku bilaabo ku furay qiimaheedu waa 7000 opening stock kaliya ayaa waxaan ka dhigayaa single inta kalena waxa ka dhigayaa multiple ledger marka opening stock qiimaha ganacsiga marka bilaabayay wuxuu ahaa 7000 dan software ka tagayaa waxa leeyahay create meesha name qorad waxa ku qoraysaa opening stock dan waxa leedahay enter meesha under ku qoran tahay muxuu ahaa waxa ka dooranaysa waa qaanada list of the group ayaa ka dooranaysa opening stock wuxuu tagaa trading account ayuu tagaa trading account marka labo qismada waa maxay waa direct expenses iyo direct income marka opening stock waxa waay xagan waxa ka dooranaysa direct expense marka already waa ay tahayba meesha waxa leedahay enter waa saxsanahay dan meesha ku qoran tahay opening balance lacagta ku bilowda ganacsigaaga wax gelinaysa inta qiimaheedu maxay 7000 baheed dan enter ayaa leedahay accept waa aqbalay marka dan waxa tagaysaa muxuu ahaa warqadii faafaahin ka tagaysaa jadwalka ayaa tagaysaa waa maxay opening stock already waa soo sameynay maxaa ku xiga purchase alaabta soo iibsanay qiimihiisu wuxuu ahaa $9,000 ayuu tigtay alaabta soo iibsanay qiimaheeda
then halkan leedahay marka tagto waxa taabanaysaa escape 2 times 1 2 then waxa tagaysaa meeshan ku qoran tahay multiple lecture waxa tagaysaa qaybta create awal single baa laakiin hadda waxa tagaya multiple baa leedahay then enter ayaa leedahay then enter ayaa leedahay meesha aynu ku soo baxdaa number 1 markaas waxa ku qoraysaa meeshan purchase waxaas ma waxa lacag waxa soo iibsato waaye purchase trading account-ga wuxuu ka tagaa qaybta debit side-ka aan waa maxay direct expenses halkaas ayaa ka dooranaysaa halka marka ku soo baxdo meeshan marka ku soo baxdo direct expenses meeshan ayaa waxa leedahay enter qiimaha alaabta soo iibsan qiimaha gaar ah lacagta maxay $9,000 bahayd waatan 9000 halka gelinaysaa lacagtiis 9000 enter ayaa leedahay enter maxaa purchase inoogu xigay marka wax soo iibsano waxa inoogu xigay rent ina kira bixinay kirada bixinay qiimaha muxuu ahaa 1200 renti waxay tagtaa profit and loss account qaybta ah indirect expenses then waxa tagaysaa halka wax ku qoraysaa renti kirada bixisay renti then enter waxa leedahay indirect expenses baa qoraysaa meesha ku qoraysaa marka halkaas ka dooranaysa isaga ku siinaya group ugu jira by default ahaan ayuu ugu jiraa marka indirect expenses ayaa enter leedahay indirect expense ayaa enter leedahay qiimuhu muxuu ahaa 1200 then enter ayaa leedahay wixii kugu xigay aad qor u boodisaa maxaa ranti inoogu xigay waxa inoogu xigay salary oo ina mushahar bixinay salary maxaa bixinay mushaharka bixinay muxuu ahaa 1500 then software ka tagaysaa waxa ku qoraysaa salary also waxa waaye waa indirect expenses halkaas ayaa ka dooranaysaa dan waxa leedahay enter 1500 ayaa salary bixinay then enter ayaa leedahay then maxaa ku xigay inoogu xigay salary waxa inoogu xigay wages wuxuu waa mushahar laakiin salary iyo wages wuxuu ku duwan salary waxa waaye muxuu ahaa waa mushahar waa bil aad bixiso toos ah oo badan waa dadka ma taqaan waxa la dhahaa educated people ka salary qaata wages waxa qaata dadka uneducated people ka oo salary waa mushaharka tooska wages waa maxay waxaan Soomaali dhahno inagu journati dadka muruqmaalka ah oo saacad ku shaqeynaya ama 1 hour ama asbuuc ku shaqeynaya laakiin always wages qadis waxa waaye dadka uneducated people ayaa always wages ka qaata marka wages mushaharka bixinay waa maxay 1000 waaye wages ay qoraysaa wages enter marka wages waa maxay waa direct expenses and enter ayuu ahaa 1000 ayaanu bixinay oo wages wuxuu tagayaa trading account ayuu tagayaa qaybta direct expenses ka hadhow isla arkaynaa then maxaa wages ku xigay wages waxa inoogu xigay carriage inward iyo carriage outward carriage inward waxa marka alaab soo iibsato inaad adigu kharashkii ma taqaanaa iska bixisay carriage outward waxa way adigoo sale in alaabta iibiso macmiilka marka alaabta ka iibiso inaad dhahdo macmiilka marka alaabta qaadanayo gaar gacanka waxa inaad kharashka bixiso waaye labaduba waa expenses midna waa maxay direct expenses midna waa indirect expenses marka carriage inward isagu wuxuu tagayaa trading account ayuu tagayaa oo direct expenses carriage outward na waxay tagaysaa profit and loss account ayay tagaysaa oo ah indirect expenses marka carriage inward waxaa bixinay 1050 kun iyo konton carriage inward oo carriage inward wuxuu direct expense ayaa leedahay 1050 maxaa ku xigay carriage outward oo carriage out maxay ahayd indirect expenses qiimaheedu muxuu ahaa 450 I think so 450 waa 450 marka taasna waa isla qaadanay maxaa ku xigay all waxa hadda waxa xisaabinaa waxyaabaha expenses ka ah direct expenses iyo indirect expenses ayaa dib wadnaa marka maxaa ku xiga land and building inaan dhul soo iibsano iyo building guri oo qiimahoodu gaaray lacag $1,000 15000 land and building waa maxay waa balance sheet ay tagaysa waa fixed asset ka marka halkan waxa ka dooraysa ku qoraysaa fixed asset marka already waa uu soo saaray wuxuu fixed asset ugu jiraan default ahaan
qiimo maxaa 15000 marka balance sheet ka ay tagaysaa land and building qaybta fixed asset ka dan maxay ugu xigay land and building waxa ku xiga investment inaa sameeyo maalgashiga qiimihiisu wuxuu gaarayaa 20000 wuxuu isna waa maxay waa fixed asset investment fixed asset waaye oo ah 20000 investment maxaa ku xiga investment waxa inoogu xigay loose and tools waa qalabka yariiska waaye oo qofku laakiin muxuu isticmaalo waxa kamid ah muxuu baanada waxyaabaha Coca-Cola lagu furo waa qalab yarka waaye laakiin waa fixed asset waaye oo meerada ayaa leedahay meerada ayaa alaab leedahay waaye marka iibinayso waa qiimo ay kugu fadhida marka waxay tagaysaa balance sheet ka ay tagaysaa qaybta asset ka ay tagaysaa qiimaheedu muxuu ah loose tools qalabkaas yarka qiimaheedu wuxuu gaaray 12000 loose tools wuxuu noqonayaa fixed asset waa 12000 maxaa inoogu xiga loose tools waxa ku xiga discount marka laba hadda discount waxa waaye wuxuu tagayaa profit and loss account ayuu tagayaa oo ah qaybta ah indirect expenses marka laba discount ayaa jira discount receivable iyo discount allowed marka kan waxa waaye discount allowed waaye waxa way macaamiil ayaa alaab ka iibsaday markuu alaab ka iibsaday waxa tiri muxuu ahaa example su'aalahan $10 qiimaha alaab gaarso ka iibsaday markaas $10 wax ku sameeynaya 10% wax ku sameeynaya oo $10 10% lagu sameeyo maxay qoraysaa 1% ka goonaysa markaas qaadaysa macaamilka $9 ay ka qaadanaysaa halka dollar muxuu noqonayaa expense ayuu ku noqonayaa oo ah indirect expenses waa discount adu macaamilka u sameysay marka adiga discount lagu sameeyo alaab soo iibsanaysa waa maxay waa discount received taas waxay noqonaysaa income ayay noqonaysaa laakiin hadda waa maxay indirect expense ayay noqonaysaa oo ah profit and loss account ayay tagaysaa qaybta debit side ka discount allowed oo ah indirect expenses imisa discount waxa qiimihiisu 1000 I think is so discount where is discount allowed 1500 1500 debit side maxaa inoogu xiga discount allowed waxa ku xiga interest inaad bixiso mataqaana dulsaar ama lacag riba ay qorsada xaraam laakiin waa qohamas ka barnaa in interest bixiso 500 marka ay noqonaysaa indirect expenses waaye profit and loss account qaybta xigtaysa debit side ka interest indirect expenses bay noqonaysaa interest ka bixi muxuu ahaa 500 sajalaha yes 500 interest then maxaa ku xiga what's the next interest 500 waxa ku xiga telephone charges ina mataqaana telephone charges wuxuu noqonayaa profit and loss account ka qaybta wuxuu tagayaa debit side ka ayuu tagayaa oo waa maxay waa indirect expenses waa ina telefoonka mataqaana meerada yaala ama xafiiska yaala bishii waxa lagu soo diraa lacag $700 700 telephone charges telephone charges oo muxuu noqonayaa indirect expenses 700 what is the next then maxaa ku xiga telephone charges waxa ku xiga printing and stationery waxa way alaabta mataqaana xafiisyada qalimaanta mastarada waxyaabaha waraqaha soo iibsato A4 ka waxyaabaha soo qiimaha wuxuu noqday $900 inay soo iibsato qalabka xafiiska waxyaabaha way printing and stationery ga profit and loss account ka tagaysa qaybta debit side ka noqonaysa indirect expenses printing and stationery printing stationery only حقنا indirect expenses 900 printing and stationery dan maxaa ku xiga furniture ina soo iibsanay qalab xafiisyada uu miisas iyo waxna soo iibsanay oo qiimahaas wuxuu tagay 80000 marka
furniture ka muxuu tagayaa balance sheet ka ayuu tagayaa qaybta fixed asset ka ayuu tagayaa wuxuu noqonaysaa hanti meesha iska leedahay meheradu markii meheradu aad iibinayso oo micnaheedu ama aad ka baxayso oo kale ama rabto meherada inaad iska iibiso ama kambanigaaga waxaas oo xisaabsanaysaa furniture ka qiimihiisu hadda waxa waaye 18,000 furniture wuxuu noqonayaa fixed asset waaye qiimihiisu muxuu ahaa 80,000 dan maxaa ku xiga furniture waxaa ku xiga return inward marka waa maxay waa sales accountiga oo 200 ka waa maxay waa inaad alaab laga iibsaday ayaa mataqaanaa dib loogu soo celiyay oo waxay ka go'aysaa saleska ay ka go'aysaa markan waa 200 sales account ay ka go'aysaa maxay waxayna tagaysaa muxuu ahaa profit and loss account trading account ay tagaysaa qaybta credit side ka waxayna ka go'aysaa saleska ay ka go'aysaa return inward waa sales waaye waa sales account waaye wuxuuna ahaa 200 dan meesha markay sales account markay credit noqoto waxa ka dhigaysaa debit DR ayaa ka dhigaysaa si uga go'do sales account si uga go'do dan qaybtu waa dhameyn hadda waxa uu goobinaa qaybta credit side ayaa u gudbaynaa oo ah capital lacagta qiimaha capital haysto waa maxay 100,000 100,000 ayaad haysatay capital waxay hoos tagaysaa capital account 100,000 credit side ujeedaa hadda meesha waa isbedel awal maxay debit side lacagta waxay noqotay credit side waa qaybta credit ka u gudubnay waxa interest kan waa interest received ina interest aad heshay lacag dulsaara oo ah 1,500 waa maxay waa indirect income waaye marka profit and loss ay tagaysaa profit and loss account ay tagaysaa or baad kale waxay qoraan financial statement laakiin aniga hadda buugan full garoonayo ama raacayo waxa qoraya profit and loss account marka interest received waaye 1,500 interest received indirect income 1,500 am I right صح yes 1,500 كوام return outward واحد ما يحتاج ما هو purchase waaye alaaba soo iibsatay ayaa dib u celinaysa purchase account ayayna ka go'aysaa return outward purchase account ayay tagaysaa qiimaheedu muxuu ahaa 500 I think so yes return outward 500 marka meesha debit marka noqoto waxa ka dhigaysaa credit ayaa ka dhigaysaa say badaqana purchase ka uga goodo then maxaa ku xiga sales alaabta mataqaan laga iibsado qiimaha wuxuu tagay 16,000 sales wuxuu tagaysaa sales account qiimaha alaabta muxuu ahaa 16,000 sales maxaa ku xiga commission ina commission aad lacag ku darsato commission kaas qiimihiisu ahaa 1,000 commission marka wuxuu tagayaa profit and loss account-ga qaybta indirect income ayuu tagayaa oo profit and loss account-ga commission indirect income ayuu tagayaa halkaas ayaa ka dooranaysa meesha qorta list of group ka dooranaysa meesha qorta ayaa ka dooranaysaa qiimaha inuu ahaa how much 1,000 no indirect income bana ka dhigo indirect income oo halkaas wuxuu soo qoray muxuu ahaa indirect income yes credit halka ka dhig commission indirect income yes taasaan ahay then maxaa ku xiga commission waxa ku xiga creditors lacagta deynta in lagu leeyahay waa maxay waa 6,000 creditors maxay hoos tagaysaa sundry creditors waa dhihi karaa waxaa kaloo dhihi karaa current liability waayo waa deyn lagu leeyahay
oo waxa qiimaheedu maxaa 6000 I think so 6000 marka waxa dhigi karaa laba dhacdo qaadan kara inaan dhawina halka dhaw meeshan ay secondary creditors meeshan aan ku qoray waxa kala dhigi karaa current liability laakiin secondary creditors baa qaataan uu marka waa wada dhameynay walillahi alhamdu qaybta waxa u gudbaynaa adjustment-ga hadirtaan adjustment-gu waa minus ama plus wuxuu ama ku daraysaa ama ku go'aysaa marka adjustment-gu waxa way afar xaba ayaa bahaysanaa waa closing stock outstanding wages interest received in advance iyo commission receivable marka closing stock adjustment-gu always ama must be sometimes always badana wuxuu noqdaa muxuu ahaa saddex waxdaha laba dhacdo ayuu noqdaa laba khaanadood ayuu tagaa sometimes marani yaryar wuxuu noqdaa 3 times noqdaa laakiin always wuxuu noqdaa 2 times marka closing stock laba meelood buu tagaa marka koowaad wuxuu tagaa trading account-ga qaybta credit side-ka ayuu tagaa marka dambana balance sheet-ka qaybta asset-ka ayuu tagaa outstanding wages-ka mar wuxuu tagayaa profit and loss account-ga qaybta debit side-ka ayuu tagayaa waxdaha trading account-ga qaybta mataqaana debit side-ka wages-ka ayuu ku darsamayaa marka wuxuu tagayaa balance sheet-ka muxuu liabilities ayuu tagayaa oo mushaar lagu leeyahay wage mushaar lagu leeyahay inuu bixin interest received in advance waxa waa in interest soo qaadatay advance ahaan soo qaadatay marka waad mataqaan interest received in advance gan qaybta mataqaana profit and loss account-ga waxa profit and loss account-ga interest received ayay mataqaana tan ay 1500 ayay ka go'aysaa 600 oo 900 inoo saaray marka dambana balance sheet-ka waxay tagaysaa liability side-ka ay tagaysaa commission receivable commission kan mataqaana aan 1000 ka ah ayuu ku darsamaya qaybta profit and loss account-ga qaybta credit side-ka marka kale wuxuu tagayaa asset side-ka ayuu tagayaa oo balance sheet-ka ah marka waa sameeynaa waxa ugu horeeya closing stock journal intaan muxuu noqdaa waa closing stock account to trading account ayuu noqdaa marka waa sameeynaa waxa ku qoraysaa meeshan closing stock closing stock marka marna waa maxay waa current asset marna waa maxay waa direct income marka hadda kan koowaad waxa maxay waa kan koowaad waxa ka dhiganaynaa current asset wax qiimo qoraysa qiimaha dhow ay ku qoraysaa current asset ku qoraysaa dan waa soconaysaa closing stock laba jeer buu yimaadaa marna wuxuu noqonayaa current asset ayuu noqonayaa marna wuxuu noqonayaa direct income closing stock marka hadda fiir hadda closing stock kaliya hadda ku dhufto waa diidaya fiiri inta hadda waxba khalday closing waa iska khaldamaysa hadhow iska khaldamaysa marka tan waxa ku daraya closing saacado u garanaysa u kala garano midna waxa ku qoranaa closing stock account midna closing stocks account ayaa ku qoranaa kan waxa ka dhiganaa closing stocks ka dhiganaa waayo kan wuxuu noqonayaa muxuu ahaa direct income ayuu noqonayaa oo qaybta muxuu ahaa profit qaybta trading account-ga marka maxaa ku xigay oo kale waxa ku xigay outstanding wages already wages soo qoranay laakiin outstanding wages ay hadda qoraynaa outstanding wages wuxuu noqonayaa current liability ayuu noqonayaa then maxaa noo haray interest received in advance interest received in advance interest received in advance maxay noqonaysaa current liability ay noqonaysaa oo current liability ay u qaadanaynaa maxaa soo haray commission receivable waa last kii ugu dambeeyay waa commission receivable waa 400 then commission receivable wuxuu noqonayaa current asset ayuu noqonayaa oo qaybta assetka ayuu tagayaa
marka waa dhameynay falilah alxamdu marka journal entry ahaan ay hadda sameeyay dhacdooyinka ay sameeyeen marka waxa leedahay two times escape ayaa leedahay then escape ayaa leedahay then waxa tagtay meesha ku qoran tahay accounting forge meesha ku qoran tahay tagaysaa marka accounting forge ku dhufato waxa tagaysaa meeshan ku qoran tahay F7 oo ah journal oo reference waa fiir hadda aad tago F6 oo kala tusaale ahaan waxaan rabaa meesha inaad tago si inoogu muuqato F7 oo ah journal ayaa tagaysaa marka journal tagto dhacdada inoogu horeysa maxay ahayd closing stock ayay ahayd adjustmentiga closing stock ayay ahayd marka waxaa qoraysaa closing stock account oo qaybtan oo ah closing stock midna maxay ahayd current asset ayay ahayd midna maxay ahayd direct income ayay ahayd marka qiimo maxaa 1200 waxa la yiraahdaa 12000 12 kun bixid marka waxa la yiraahdaa closing stock account to closing stocks account oo aan 12 kun dan safe ayaa leedahay closing stock taa waa samaysanay maxaa ku xiga outstanding wages marka outstanding wages journal entry muxuu noqdaa wages account to outstanding wages account dan waxa leedahay wages ayaa dooranaysaa wages hoos ayuu ka siinay hoos ayaa ka dooranayna meeshan waa ta wages account ayaa leedahay haddaan wages maxaa haysanay 1500 waxa haysanay 1000 kii ayaa haysanay haddaan isla eegno waa kan wages maxaanu haysanay 1000 ayaa haysanay marka outstanding wages marka hadda taan ku darsamayaa oo den lagu leeyahay waayo ala aan bixinayno marka qiimo maxay 500 maxaan ka goonaynaa outstanding wages account ay noqonaysaa marka total hada ku darsanto waa 1500 maxay inoogu xigay interest received in advance marka journal entry waxay noqonaysaa interest account to interest received in advance account ay noqonaysaa waxa leedahay interest account halkaas ayaa ka dooranaysaa interest received ayaa leedahay oo ah 600 bay ahayd sax dan isla eegno interest received in advance adjustment maxay ahayd 600 ayay ahayd 600 to interest received in advance account maxaa ku xiga kale waxaan ugu dambeeya oo ah commission receivable maxay noqonaysaa journal entry waxay noqonaysaa commission receivable account to commission account ay noqonaysaa journal entry ahaan dan waxa leedahay halkan commission receivable account oo ah 400 buu ahaa to commission account فلله الحمد ووضع دميني وحرمنا إن مركز إنه profit and loss account إيه balance sheet كم حاب profit and loss هاي كهيسنا حنا balance sheet هيسنا إن أسلقنا يرمنا ما كبيش وعتقد الساعة F1 أعتقد سؤال details تفاهم ووقت صح وحيري gross profit كهيسنا ما هو 9750 net profit كهيسنا ما هي 5300 هذا أسلقنا وكان profit and loss كديرة تان ديارية واتن gross profit كهيسنا محوها كديارة trading account and profit and loss account عندنا وحيري gross profit كهيسنا ما هو 9750 أو فائدة أيام هيسنا حقا هو كسوفتوير كوينسيس صح واي gross profit ما هيسنا 9750 net profit كانوا ما هو فائدة سافي جوده ما هي 5300 هذا سلايقنا واكن 5300 واتاس waxa laakiin 5300 ka waxa uu weydinaysa transfer to capital balance sheet ka capital ay ku daraysaa 5300 kan hadaan isla eegno waa tamka ka shaqeynayay waa tan balance sheet ka tagno capital account waa kan lacagta capital account maxay ahayd 100000 ayaad waxa ku daraysaa net profit ka 5300 maxay isku noqonaysaa awal 153000 isku noqonaysaa 100000 ka 3000 isku noqonaysaa marka taa balance sheet kan isla eegno gross profit كم هو واسعسنا هني profit and loss واسعسنا هني لها balance sheet كسر تجينا وحتى جسا F1 محا balance sheet كtotal amount تجاه سمحوها وحاول نقول 100 to 1400 هذا رسلا يقولنا الغد فهمت بأن هاي السنة reference جيني 100 to 1400 بقول كبقول واسعسنا هني وصح
oo kul waa haysanaa land and building waxaa haysanaa 15,000 investment waxaa haysanaa 20,000 loose tools waxaa haysanaa 12,000 laakiin fiiri software wax ka fudud buu noo sheegaya fiiri wuxuu noo soo qoofiyey wuxuu yidhi fixed asset ka haysto dhan waa maxay waa $100,000 hal mar ayuu isku keentar saasaa ku ogaanaya fiiri software saas ayuu ku fudud yahay laakiin marka hadda aan mataqaana handwrite ku qorato ama ku qorato xaashirka tahay kuma kala sheegayso fixed asset-ka iyo current asset iyo fixed asset-ka لكن software كو نو شيء waxyaabaha waxa way ku fududeeyo software wuxuu ka fix as kaas waa maxay waa 100,000 capital kaas waa maxay waa 100 marka sidaas ayuu cashkeenu aan ku soo gabagabeynaya sida loo galiyo final accountiga muxuu ahaa tali arbina sida loo shaqeysiyo laakiin waxa very important in aad taqaanid mataqaana account cycle waa bookkeeping inaad taqaanid journal entry inaad taqaanid ledgerka inaad taqaanid trial balance inaad taqaanid marka afarta marxalad ka soo kulubta ayaa final accountiga u imaanaysaa marka laakiin very easy aad ayuu fududahay qof kasta oo baran kara qof kasta oo sameyn kara marka software kan wuxuu anfacaya si aad iyo aad dadka mataqaana business ka haysta ganacsatada haysta sida kambaniyada iyo ganacsatada yar ka haysta maanta waa laga tagay wax la jira manual accounting buugiyo mataqaana qalin wax lagu qoro maanta waa laga tagay software dad ayuu caalamka isticmaalaya marka ganacsatada badanaa ma ogaan karno maxaa faa'iido maxaa khasaarnay ilaa dad yar maahan ma ogaan karno very difficult way inaan ogaano haddaan kan software-adan isticmaalin marka halkaas casharkan ku saabsanaya waxaan jeclahay casharadan inay ku anfaceen haddaa wax badan ka faa'iiday waa inaad mataqaanaa like share aad samaysaa oo dadka kale aad gaarsiisaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh